waxaasaas ku leeyahay waxa waaye aadanka isku mid ma ahan qofna booskan hor ayuu u fadhiisanaa gudaha ma sii aadaya awood ayuu ku xiran tahay qofna waxa waaye gudaha ayuu sii aadaa marka maanta videoga wuxuu khuseeyaa laba su'aal aad iyo aad u wanaagsan oo laba abaayo aan ugu jawaabayo waxaan rajaynaa adakana inaa ka faa'iidi doontiin insha Allah waxaasaas needahayne waxaan u malaynaa inaa adakana u baahantahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalay khaalig dhammaan waa idin salaama adduunka meel walba ku nooshihiin soo dhawaada video cusub maanta waxaan rabaa saddex su'aal ama lama su'aal hadee dheer tahay lama ayaan iga dhigaa inaan ka jawaabo waxaan aad iyo aadna u malaynaa su'aashan abaayad ugu horeysa isoo weydiiyay gabdho badan inay u baahan yihiin ayaan filaa marka waxaan rajaynaa inaan ka faa'iidi doontiin insha Allah abaayo waxaan ugu jawaabayo tan kale waxaa idin sheegaa abaayada ugu horeyso horta sug intiin gudaha u galin abaayada ugu horeyso waa idin ducaynaa walaalay khaaliga intii awlaad u baahan awlaad u ooman waxa ilaahayniga baryaa awlaad baari inuu ilaahay dhabtiin soo saaro oo hooyo u naqatiin aabo u naqatiin intii oo wali la guursan guur khair qabta oo xalaal ilaahay ugu baryaa allahumma aamin ya rabbil alamin tan kala asxaabta khaaliga abaayad ugu horeyso message-keed hadda ma akhri karo mi horyaalo laakiin inta ayaan soo saaraa waa ilo ama koranka akhri karo la muhiimadiisi waxaan dhahday nin gabar dinkaad la joogo ma ahan ugu faa'iideysta xaajigeyga qof ila jooga ma ahan waa iga tagaa okay videogan oo kale ani inta ka hor waan ka soo sheekeeyay sida ugu faa'iideysanaysiin awal shay waa ilaahay wuxuu anagana siinay ma helayno laakiin sin ku dadaaleyna waa marka waa kasoo sheekeeyay gabdhaha oo nimankood ka maqan sidee markaas fursadaha oo markaas ay sameyn karaan oo ku dadaali karaan oo markaas ilaahay uu ku sii karaayo 99% marka maxaa waay fursadaasi abaayo markii mar hore ma soo arkin videogan ayaa dhici karto laakiin haddana waa idin soo xasuusina okay abaayo iyo abaayooyinka imaqlaayaan ugu horeen waxaan ku leeyahay ninkaagi 15 beri maqan inaa ku guuleysatid ayaan aad iyo aad kugu rajaynaa ilaahay kugu baryaa hadda ayaan soo weys qaatay waxaan sugayaa salaada casir aan mar walba waxaan jeclahay weys in aska qaw subhanallah ilaahan soo haday dhamaanteena asxaabtida khaaliga waxa ugu horeyntii sameynaysaa hadda daawo haddaan ku faro daawada waqti ayay qaadanaysaa laakiinse ugu horeyn waxaan ku faraa tan labaad waxaa sameynaysaa mar walbana haddana waxaa sameynaysaa oo 15 beri oo ninkaaga kula joogo waxaa sameyn beri ama bil aan qato gabar walba u sheekeyna insha Allah sameynaysaa la sheekeysiga ninkaaga ama galmada ninkaagi aad u badiso awal shay ugu horeyntii tan labaad marka adiga la sheekeysato waxaa sameynaysaa dadka badan khalad ayuu u fahmayaan ama way soo caayayaan waxaa sameynaysaa dhabarkaadi barkin markaa gashato kabarkaad kastoo kor ayuu ka camaho lugahaagana derbiga saar yacni wajigaaga u aadi dhinaca derbiga sariirta madaxeeda wajigaaga u aadi lugahaagana kor saar sidoo subxaanallah oo bahalihii oo waxaan khalaayeen ilmaha khalaayeen ukumaha yani isku helaan yani adi isku gaarsiin waxaasaas ku leeyahay waxa waaye aadanka isku mid ma ahan qofna booskan hor ayuu u fadhiisanaa gudaha ma sii aadaya awood ayuu ku xiran tahay qofna waxa waaye gudaha ayuu sii aadaa marka barkin dhabarkaada saaro sidoo u tago xayawaanaadka raximka gudaha meesha ukumanka loogu talagalay oo u tagaan isku qabsadaan yani adiga waxaan ku leeyahay dadaal muuji intii 15 baaya adigana saas sameey intii 15 beri sameynaysaa 40 daqiiqo ayaa kor u jiifaysaa telefoonkaada ku baashaal ninkaaga la sheekayso wixii rabta sameey 40 daqiiqo saas ku hay tamam kadib musqusha tag iska soo dhaqsida adiga jeceshahay laakiin aniga taas ayaa boqolkiiba boqol ku waanina iyo inaan mar walba sameyso mar walba
ninkaaga la sheekaysato 15 beri fursad weyn inaad ku guuleysato anigana tan labaad waxaan kugu waaninaa hadana subax walba markaa soo kacdo waxaa cabaysaa koob dhagayara ah 3 xabo dhagayara ah tumo bakeeri ku shubo biyo kuleel ka dabagay ama karkari hataan kugu waaninaa markaa karkariso kisto asigoo qandac cab ilaahay daawo kugu daro ani taas ayaan kugu waaninaa iyo duco insha Allah because waqti badan ma haysato waqtigan kooban ina adiga ku guuleysatid ilaahay kaaga baryaa okay waa ku ina insha Allah haween walba akhrisato suuratul baqara يعني إلهو أفر بلا ka dhigo سورة البقرة aad wanaagsan tahay inaad akhristo khaasatan gabdhaha urdoonka reerani inta ka bixina marka waxaan u bixinaa gabar kale ayaa jirto oo dhahday abayo qof walba aniga oo jawaabtan ay ku socoto commentiga ayaa linkiga la soo gelinaa laga yaabo inaa aragtaan inaa arkin yani faa'iidada waa niga sida ayagu aragtaan ayaa nigu khalkhalna insha Allah abayo kale ayaa jirto iyadana ay soo qortay abayo 2017 ilaa lawan xaas ahay ma sha Allah ilaahay ku barakeeyo gurigaaga يعني أولاد ولي إلهي مصينين أول شيء إلهي وحان كاغا بريا أولاد بارينو إلى مانتين إلهي نيسيو وغورين تنلوات أبايو وحان كل تالينا أنكو تالينا أنيغا إن شاء الله وحان كلها هاي waxaa sameysaa kugu waanina gawar walbana aan ku waaniya tamam sida gabadhan hadda ugu waaniyo waa ina horta aa sameysaa gabadha ugu horeysay ina sameysid waaye sida ana hadda aa ku soo waaniyay ina sameysid waa gabadha ugu horeysay videoga sida aan ku soo waaniyay horta ina sameyso tamam tan labaad waxaan ku sheegaa kaniini ani ku waana ama bardakhosh ayaa soo iibsanaysaa bardakhosh ayaa soo iibsanaysaa maalin walba sida shaahiga camal ayaa u karsanaysaa subaxdii iyo qoraxda markay dhacayso tamam ama waxaa isticmaalaysaa dhagayara ayaa isticmaalaysaa subax walba waa karkarsanaysaa qanda ayaa u cabaysaa iyo qorax dhici tamam laakiin waxaan kugu waanaa maalin walba ilaa 40 daqiiqo ayaa waxaa cabaysaa dhagayaraha tamam markaa cabtid kadib waxaa u baxaysaa mar walba dhiigaaga marka kugu dhaco waxaan saas ku leeyahay waxa waaye 40 beri ugu horeyn horta cab hal maalin dhiig kugu dhacay waa ogahay hal mar dhiig kugu dhacaysa laakiin wax ma dhibaayo 40 kaas beri marka dhigayaraha subax iyo maalin aa cabto oo ku darsato 7 xabad sooda aa ku darsanaysaa dhigayaraha 7 xabad sooda ayaa ku darsanaysaa 3 xabad dhigayaro 7 xabad sooda subaxdii qorax dhici ayaa karsanaysaa tamam anigan waa soo gelina asagoo karinayo ilaahu afkay been kareeb 40 beri ayaa saas cabaysaa 40 beri kadib waa joojinaysaa waxa uu bedelaysaa ku sheegaa markii adi caadada ku imaado ama 3 beri ha ahaato ama aku ahaato 7 beri intii caadada ku joogto ayaa cabaysaa waxaan saas ku dhahayn waxa waaye hadii ilaahay ur ku sahlo sidii xabad soodada iyo dhagayaraha oo wax kaaga gaarsiinin ayaan ka hadlaa wiil gabdhaha badan waxay dhaheen dhagayara wax ma soo haleeyo anaga waa ku darsanaa bariiska shaahiga laakiin waxaan ku darsanaa iyo kaligiisa tunta xabasoodan ku darsaday aan cabi meel masal gasho taas ana ka hubo yani ana hubo isku khaasatan admartana babyga iska haleyso maya waxa la hadhan sugeysay marka adiga caadada ku joogto bas la isticmaal laakiin ugu horeyntii waa 40 beri ina isticmaasho maalin walba 2 koob subaxdii iyo qoraxda markii soo dhacayso balana ii qaad marka cabaysid waxa cabaysaa daabo ina caboosid oo kale u niyeyso daabo ina caboosid insha Allah tan kale waxaan igu dardaarmaa suurat al-baqara aad wanaagsan tahay akhrinteedii akhrista insha Allah haween walba hatta hadii dhamay karin hatta oo aad bala dheer tahay 4 baal 5 baal 10 baal waa ka akhrisan kartaa akhriso gacmaha kortaag ilaahi bari insha Allah su'aashaani labadan su'aal inta ayaan ugu baxaa su'aal badan ayaa ii yaala oo waliba shalay aan balan qaaday ilaa xalay aan balan qaaday inaan bari aan soo gelinayo ama bardamba aan soo gelinayo gawar walba su'aal isoo weydiisay walaalaheedna inay ula qaybsadaan aad wanaagsan tahay inta iga fiila insha Allah inta ayaan iga baxaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh